ma uusan ogeyn markii ay khiyaantay oo ay saaxiibkiisii ugu dhawaa ay la taxaashtay gurkoodu inuu dhaco waxa ka harsanaa bilo yar markii uu ogaaday khiyaanadii wuxuu sameeyay wax caalamkiiba ka amakaagay Kafen da'diisu waxay ahayd markii ugu horeysay ee uu la kulmay gabadha la yiraahdo Caroline 19 sano aad ayuu u jeclaaday Caroline waxa uu maskaxdiisa ku sawirtay in uusan iyada la'aanteed noloshu dhadhan lahayn wuxuu yiri maalin ay noqotaba gabadhaani waxay noqon doontaa xaaskayga Kafen waxa uu ahaa ciyaartoy kubadda cagta ah balse bilow ah mustaqbalkiisuna waxa uu ahaa mid aan la garanayn halka uu caga dhigan doono saasoo tahay waxa uu Caroline u ballan qaaday in uu bilo yar kadib guursan doono nasiib darro Kafen ma uusan ogeyn waxa uu mustaqbalkiisu u qariyay maxaa riyo wiil yari ama gabadh yari inta isdul dhistay ay noqotay hal bacaad loogu lisay maalin kamida maalmaha ayaa khilaaf soo kala dhexgalay oo waliba muran iyo dood isku fureen Kafen iyo xabadii ay isjeclaayeen sidaas darteed Caroline waxa ay go'aansatay bal inay maalmo ka dheeraato si dareenkeedan kacsani u dago sidaas darteed Kafen waxa uu ogolaaday in ay fasax ku soo qaadato ayada iyo saaxiibadeed wadanka Spain Caroline waxay u safartay halkaas waxayna halkaas kula kulantay qof aysan filaynin kaasi waxa uu ahaa Porte ama goolhaye ahna saaxiibka ninkeeda magaciisana waxa la oran jiray Courtois labadooduba way wada ciyaari jireen muddo dheerna waxay ka wada tirsanaayeen xulka kubadda cagta ee wadanka Belgium balse saaxiibtinimadii xoogga badnayd kama celinin Courtois in uu khiyaano saaxiibkiisii Kafen oo waxa ay ku saamowday sidii aadka u darnayd ee uu uga helay uguna soo bandhigay rabitaankiisa wuxuu isku dayay Courtois inuu u soo dhawaado waqtiga intiisa badan la qaato si ay shabaqiisa ugu soo dhacdo nasiib xumo Caroline way aqbashay xiriirkiisii umana aysan aabeeyelin jacaylkeedii ay ka soo tagtay waxayna labadoodu ku dhaqaaqeen in ay khiyaanaan Kafen ayna sameeyaan xiriir romansi iyo alaabay waxay tiri Caroline iyada oo ka hadlaysa ninkaas ay baratay dhawaan wuxuu ahaa shakhsi dadka iiga duwan waxaan dareemay dareen igu cusub oo aanan weligay ka dareemin Kafen markii ay ka soo laabatay Spain waxay si cad ugu sheegtay wax walba uu awoodi waayay Kafen inuu aqbalo arrinkaas ay la wadaagtay sidaas awgeed si degdeg ah ayuu xiriirkii ugu jaray sidoo kalena wuxuu jaray xiriirkii saaxiibtinimo ee kala dhaxeeyay Courtois dib dambana ulama uusan hadlin murugadiisii awgeed ayuu attentionkiisii dhinaca shaqadiisu isku dhaxyaacday mustawihii tartamada ciyaartiisuna hoos u dhac ayaa ku yimid taas oo sababtay naadigii uu ciyaarayay ee Chelsea in ay ka maarmaan ciyaartiisii iyo hawshii uu naadiga u hayay daawade bal isdhig adigu booska ninkaas kaba soo qaad waxa ku qiyaamay jacaylkaaga iyo saaxiibka maxaad sameyn lahayd halka hoose ee faallada ra'yigaaga nagula wadaag muddadaasi waxay ahayd muddooyinkii ugu xumaa noloshiisa waxaana ku lumay kalsoonidii uu ku qabay naftiisa balse wuxuu la kulmay ugu dambeyn qofkii bedelay noloshiisa abid wuxuu ka bartay khadka internetka gabadha la yiraahdo Michelle waxay ku guuleysatay inay ilowsiiso xabiibadiisii hore mar kalena uu jacayl cusub dib u dareemo waxay aad ugu dhiirigelisay in uu attentionkiisa siiyo ciyaaraha uuna hagaajiyo heerka uu ka joogo kubadda cagta bilo dhowr ah kadib wuxuu hubanti ka dhigay in uu yahay mid ka mid ah ragga hibada u leh kubadda cagta caalamka waxa heshiis la galay naadiga City sanadkii inuu ugu ciyaaro 75 milyan oo euro ah wuxuu yiri Michelle waxay bedeshay noloshaydii ma garanaya waxa aan sameeyo iyada la'aanteed waqtigaas ayaa waxa bilowday in ay wargeysyadu qoraan khiyaanadii lagu sameeyay jamaahiirtii kubadda cagtu waxay aad ugu xanaaqeen Courtois oo ahaan jiray saaxiibka uu ugu jecel yahay Kafen saaxiibadiisa isagoo ahaa goolhaye adag kana soo dhalaala hawshiisa ayaa laga cayriyay xulkii kubadda cagta ee Belgiumka waqtigaas ayaa shakhsi aan la filayni ka badbaadiyay Courtois masiir madow oo sugayay goolhayahaas qofkaas badbaadiyay wuxuu ahaa kayfinkii uu khiyaanay jacaylkiisana ka gacmeeyay wuxuu yiri danta wadankayga ayaa wax badan iga fiican argoosigayga sidaas darteed waxa uu ka dalbaday tababarihii xulka in uu dib ugu kooxda ugu soo celiyo Courtois maadaama uu yahay goolhaye fiican wuxuu yiri Kafen mid kamid ah saaxiibadiis ayaa ii sheegay inuu aad uga qoomameeyay wuxuu sameeyay hadda Kafen waxa uu ku nool yahay maalmihii ugu farxadda badnaa isaga iyo xabiibtadiisa cusub ee Michelle waxayna isguursadeen labadoodani sanadii 2017 waxaana hadda u joogta 3 caruur ah waana qoys aad u qurux badan balse ninkii Courtois ahaa waxay ogaatay xaaskiisu ahna ilmihiisa hooyadeed in uu khiyaanay dhowr goor khaa'in wixii shalay uu falay ayuu maantana falin sidaas darteed waxay go'aansatay in ay kala go'aan isna furaan ilmihiina iyada xanaanaysata sumcadiisii dhulka ayay ku dhacday waxaana sabab u ah khiyaanooyinkiisii isdaba joogga ahaa ee uu kula kacay dadkii ku hareereysnaa oo dhan
wuxuu yiri Kafin isagoo ka hadlaya xiriirkooda hadda ee xulka ay u wada ciyaaraan ee Belgiumka arrimihii dhexdeena yaalay ma ahan sidoodii hore hadda kubadaas ayaanu isugu nimaanaa wax dheeraad oo kale oo aanu isku darsanaana ma jiraan xikmad ayaa waxay tiraahdaa waa suurtagal in khiyaanada la cafiyo balse waxaan suurtagal ahayn in la ilaawo muuqaalkan waxa idin soo diyaariyay idin soo jeedinaya anigoo ah Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif dhinaca Facebook haddaadna nagala socotid share iyo like inoogu qabo dhinaca YouTube kana subscribe iyo like dhiirigelinta aad baad u mahadsan